kulankan oo ahaa mid taageero iyo soo dhaweyn loogu muujinayay madaxweynaha cusub ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo la wareegitaanka xafiiska ugu sarreeya ee dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gado waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka ururada dhalinyarada haweenka iyo maamulka degmada ugu horeyn bulshadii ka soo qayb gashay kulankan oo warbaahinta la hadashay ayaa taageero u muujiyay madaxweynaha cusub ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud iyagoona sheegay in guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Gado ay taageero buuxa la garab taagan yihiin madaxweynaha waxayna sidoo kale sheegeen in uu wax ka qabto arrimaha Jubbaland oo sanadyo badan taagnaa isla markaasina uu xogogaal buuxa u yahay wax kasta oo Jubbaland xilligan ka jiro waxaanu salaamahayaa madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya waad garanaysaan waa ninkii shalay noo imaaday oo Garbaharre noogu yimid annagoo Soomaali ah annagoo midnimada Soomaaliya jecel oo marqaati ka tahay dadkii baan nahay waxaad ogtahay ma kuu sheegaa maanta nin wax loo sheegay ma toodo ninkii maalinkii la dooranayay habeenkii la dooranayay habeenkii ma ana seexan xabadana waa ka dhamaatay ciidanka annaguna waan dabaaldegayna nin kastoo madaxweynaha Soomaaliya saasaanu inay dad qabiil ku shaqeeyo manina annagu waxaan maanta halkaan u fadhinaa oo isugu nimid inaan soo dhaweyn u sameeyno madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha tobnaad mudane xasan sheekh maxamuud hambali aan ku leenahay madaxweyne waan ku hambalyeynaa waan ku soo dhaweynaynaa insha Allah waan ku duceynaynaa in xilka aad qaaday Ilaahay kuu fududeeyo oo aad noqotid wadankiisa daacad u noqdo oo u adeego in aad ogtahay wadanka Soomaaliya waxa ka jiro adigoo madaxweyne ka soo ahaa iyo adigoo aan madaxweyne ahaynba 8 sano ama 10 sano u dambeysay wax ka socday wadanka aad baad xogaal ugu ahayd waxaan kugula dardaarmaynaa inaad si odaynimo leh oo Soomaalinimo leh aad u wajahdid arrimaha ka taagan wadankeena Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada iyo federaalka inaad si waxa weeyo cadaalad ah oo dadka degan dhammaan deegaanada kala duwan ee maamul goboleedyada gaar ahaan maamul goboleedka Jubbaland inta bashooyinkooda si cadaalad ah oo waafaqsan sharciga iyo dastuurka inaad u wajahdid waxaan leenahay madaxweynaha federaalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh waxaan leenahay xilka lagu dhiibay waa kugu soo dhaweynaynaa marka horeeto waana ku hambalyeynaa hambalye kadib state kan la yiraahdo Jubbaland oo state weyn ah oo magaalo madaxdiisa labaad ay tahay gobolka Gado Garbaharre aad buu xogogaan u yahay Jubbaland waxa ka dhex jira Jubbaland asagoo jooga yaa la dhisay